Xildhibaanada Golaha Deegaanka magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed ayaa maanta doorasho ka dhacday hoolka madaxtooyada ku doortay guddiyada Golaha Deegaanka, waxaana guddiyadaasi ka mid ahaa Guddiga Amniga, Caafimaadka, Waxbarashada iyo Guddiga Howlaha Guud iyo Dib u Dhiska. Waxaa goobjoog ka ahaa Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Koonfur Galbeed iyo mas'uuliyiin kale. Qaar ka mid ah xildhibaanada Golaha Deegaanka degmada Baraawe ayaa ugu horreyn ka hadlay ahmiyadda ay u leedahay magaalada Baraawe guddiyadan. maanta waxaan ansaxinay xeer hoosaadka iyo guddi hoosaadyada golaha deegaanka. waxaa mahad leh wasaaradda arrimaha gudaha ee ka soo shaqeeyay shaqadaani ma sha Allah. runtii xaqiiqda golaha wax badan oo u dhiman, waxaan rajaynaynaa in shaqadiga tareen badan in la siiyo. maanta waxaa nala joogo wasaaradda arrimaha gudaha. waxaa ansaxsanay guddi hoosaadka iyo xeer hoosaadkiisa. wasaaradda arrimaha gudaha way ku ammaanataa, waxaan ku ammaanan tahay waqti badan inkastoo inaga maqneede nasiib wanaag hadday nala joogaan. waxaan rabnaa weli aan ka codsaheynaa waxay dhiman golaha deegaanka inay noo dhammaytiraan. Wasiir Ku-xigeenka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa soo saaray xeer markaasi qeexaya guddiyadan. maanta waxaan kulan la yeelanay golaha deegaanka degmada Baraawe, kulankaasoo runtii ku saabsanaa in loo sameeyo ama in ay iska doortaan guddi hoosaadyo. runtii waxaa ilaahay noo suurageliyey guddi hoosaadyadii maanta golaha deegaanka degmada Baraawe inay iska doorteen, oo guddiyadaasan oo ka kooban shan guddi. shanta guddi walba oo leh guddoomiye iyo guddoomiye ku-xigeen iyo xoghayn. marka ilaahay waa noo suurageliyey. annagu haddaan nahay wasaaradda arrimaha gudaha ah, waxaan mar walba u taagannahay in aan daadejino maamulka. marka waxay ka mid tahay howlaheeni shaqo wasaaradeed. marka alxamdulilah waxaa noogu dhammaatay shaqadii ugu horreysay. guddiyadii waa iska doorteen. waxaa kalaan u qeybinay xeer hoosaadyadii oo runtii xakameyn lahaa xubinta golaha deegaanka ama sharciyadii aan u qeybinay. runtii waxaan ku howlanahay maalmaha soo socdo sidii maamulka golaha deegaanka, xildhibaanada golaha deegaanka degmada Baraawe sidii ay ku heli lahaayeen workshoopyo badan. runtii waan u taagannahay. haddii ilaahay yiraahdo ayagana waxaan ugu mahad celinayaa soo xaadiritaanka ay soo xaadireen.